hay-adda FAO oo kaashanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland ayaa maanta 200 oo booydood soo gaarsiisay dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan gobolka Saraar walowse waqti xaadirkan ay ka jirto duruuf biyalaaneed oo adag deegaano hoos yimaada gobolka Saraar Maxamed Aadan Xaaji Diriye ayaa ka warbixiyay deeqdan biyaha ee maanta la soo gaarsiiyay bulshada ku dhaqan gobolka Saraar waxaan joognaa degmada Caynaba ee gobolka Saraar waxaan halkan ku daafuraynaa biyo dhaamis muddo socon doona insha Allah gobolka ka socon doona biyahaasi waxay ka kooban yihiin 200 booydood horraantoodii baa muxuu ahaayay maanta bilaabmi doonta insha Allah hadii la ka dhigo biyahaasi waxay u qaybsan yihiin goobo loo cayimay oo maxay ahayd gobolka Saraara degmada Caynabana ka mid tahay waxa muxuu ahaayay maalgeliyay oo biyaha ku deeqday hay'adda FAO waxaana soo marisay wasaaradda xanaanada xoolaha marka maanta gudidii abaaraha iyo gudoomiyihii gobolka ayaa halkan maxay ahayd inagula sugan oo inala daafuraya maxay ahayd hawsha maanta bilaabmaysa runtii baahi weyn baa loo qabay muxuu ahaayay in maxay ahayd biyahaasi maanta ay u yimaadaan gobolka iyo dadka u baahan maxay ahayd biyaha waxaan rajaynayaa inay maaragtay sidii loogu talagalay u socon doonaan maxay ahayd biyahaasi aad iyo aad baan uga mahad celinaa wada shaqayntii fiicneed ee nala shaqeeyeen gudida abaaraha maxay ahayd uga wakiilay wasaaradda xanaanada xoolaha hay'adda wadaniga ah ee maxay ahayd SOS maanta halkan waxaan ka daafuraynaa biyihii abaaraha oo 200 looda oo gobolkan Saraara oo loo kala diri doono degmooyinka iyadoo la gaarsiin doono dadka reer guraaga ah oo aan u mahad celinaynaa hay'adda FAO iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo qaybiyaduna ka ah iyo jooga SOS si wacan insha Allah u rajaynaynaa inay u gaari doonaan haddii alla ka dhigo abaartaas oo iminka gobolkan aad ugu balaaran ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed waxaanu hay'adda FAO iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland ba uga mahad celiyay deeqdan biyaha ay soo gaarsiisay maanta bulshada ku dhaqan gobolka Saraar waqti xaadirkan oo lagu jiro xaalad biyalaaneed oo adag maanta halkan waxaynu lagu qaybinayaa ama lagu daafurayaa 200 oo booyadood oo runtii loogu talagalay in biyo dhaamiska gobolka Saraar laga qayb qaato oo ay runtii hay'adda FAO iyo wasaaradda xanaanada xoolaha soo marisay ay maanta halkan laga daafurayo 200 oo runtii degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meelaha kale bacaha leh runtii wixii loo qoray la gaarsiin doono runtii waxaana fulinaya oo mashruuca iyadu fulinaya NGO-ga localka SYS oo runtii halkan isagu distribution ku qaybinaya anaguna aan ugu daafurnay runtii waxaanu leenahay FAO iyo wasaaradda aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan kula dardaarmaynaa qoladii NGO-ga qaadatayna in runtii hawsha sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyaan oo dadku jiilaalkii baa imika sii dheeraaday in si dhaqsi ah loo gaarsiiyo dadkii biyahan ayaynu kula dardaarmaynaa hay'adda wasaaradana waa mahad celinaynaa وعلي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة داعي نبع